haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da maantana ku saabsan xuska sanad guurada 100 ee geeridii sayd maxamed cabdilla xasan. dhegaystayaal, farla-aantii uu af soomaaligu ku raagay waxay ina badday ilaa maanta inaynaan dhab u aqoon taariikhaha maalmihii saamaynta togan ama taban ku lahaa nolosha soomaalida iyo tagtadeeda. tusaale ahaan, in la maleeyaha joogtee ma naqaan guyaashii ay dhasheen amaba ay dhinteen maanseyahanadii waaweynaa ee suugaantooda aynu ku dhaadanno, iyo sidoo kale halgamayaashii madax bannaanida dalka darteed naftooda u biimeeyey. si kastaba ha ahaatee, sanadkan 2020 ee maalinta qorihii ay ka hadhay waxaa lagu malawan yahay in 100 gu ay ka soo wareegtay geeridii sayd maxamed cabdilla xasan, halgamaagii u horreeyey gumaysigii dalka soomaaliyeed ku habsaday cid ka gilgilata. xagga soomaalida waxaa la hubaa inuu dhashay guga gobaysana la baxay ee loo badinayo inuu ku beegan yahay 1856 ama 1865 mid ahaan. waxaa kaloo la hubaa inuu ku dhashay duleedka buuhoodle, gaar ahaan agagaarka ballida ubakarax iyo sacmadeeqo. ha yeeshee maalintii uu dhashay iyo tuu geeriyooday toona ma naqaan. taasna soomaalidii la xilliga ahayd ayuu kala mid yahay. maamulayaashii ingiriiska ee ay codka ahayeen ise waxay taariikhda geeridiisa ku sheegeen 23 Novembar 1920. annaguna inaan iyaga ku raacna mooye wax kale nooma bannaana. saa dhowaan ka hor far wax lagu qoro maynu lahayne. intaan haddaba taa halkaa ku dhaafo aan isweydiina su-aasha ah, sidee bay sayidka ugu suuro gashay bulsho raacata ah oo markaas ka hor aan weligeed meel qura looga talin in intuu abaabulo uu ka dhex abuuro dhaqdhaqaaq gobannimo doona uu gumaysigii dalka haystay uu muddo dheer loodin kari waayey. dhabtii, halgankii 22 gu uu wadaadku hogaaminayey wuxuu ku waday marnaba ma ahayn dhaqaale iyo mushaar dhammaadka bisha uu gootooyinkii daraawiisheed u qaybin jirae waxay ahayd tilmaamo uu kulansaday oo ciddii ku sheegan ay soomaalidu ku jeclayd. wuxuu ahaa geesi aan kal cabsata lahayn, deeqsi gacan furan, xeeldheere diimeed, aftahan tix iyo tiraab midnaba aan loogu tiitiilayn, iyo sidoo kale aqoon-yahan kasmo ballaaran u lahaa hiddaha soomaalidii uu la xilliga ahaa, taasoo u suuro gelisay inuu ku guulaysto ciidan 100 inta ururiyo inuu ka dhaadhiciyo inay gunnimo tahay gudaha dalkooda in shisheeyuhu uu ku gumaysto. wuxuu ahaa nin og sida soomaalidu ay ugu nugushahay murtida maansada. markaas buu si walba u adeegsaday, eebbana ka baryi jiray in erayada kuwa ugu saamaynta culus uu carabkiisa ku tiro. ninkii ku ducaystay buu ahaa, eebbow adaan kuu cawdoo kuu calaacaliye, cunsurtii aan leeyahay adaan kuu cuskanayaa ee carabkayga eebbow quwee, caadil baa tahay. qaybaha bulshada oo idil buu kolba mid maansada ku waanin jiray, waxna ku tusaalayn jiray. wadaadadii la coloobay ee dhaqdhaqaaqiisii ka hor yimid, wadaadadii gumaysiga la sinjaaray ee la saayiray kolkuu gabayga ku canaananayay, waatuu ku lahaa culimmada sidii baaniyaal beledka gaal joogta, baabkii allah laga akhriyey inay baloobeene inay belalka naareed ku dhici ba'a iyo u sheega. mar kalena isla iyaga waa kii ku lahaa, awyaalow ma diideen jahaad ma u dareertaan, war ma danaana iyo seef degta maad ku qaadaan, darmaan haad la qooqdiyo doolaa maad u fuushaan, wigilka diilka qaadka ah bidix ma ugu dadabtaan, daacuflayda madidaa degdeg ma u xabaadhaan, idinkaa dalkaba lehe dowlad maad u noqotaan, ileen doqoni calaf ma leh, dulbaax maxaa ka baylahay. dumarka iyo carruurtu siday u dayacan yihiin markuu dareensiinayey
ee uu u sheegayay raggii lagu halaynayay inay dhulkoodii gumaysiga ka iibsadeen dabadeedna u gacan geliyeen waa kii lahaa dadkii idinka weynaa hadday idin dulleeyeen dembi kama ayaabine cuntay idinka doorteen duunyaa la dhaabsaday dugsigaad gelayseen dameerkuna ma yeeleen halkay tala ku daysteen dab intay shideen bay dalaq idinku siiyeen doox intay qodeen bay ciid idinku daarsheen nin idin damqanayaa idinkama dambeeyo haddaydan digtoonaan daad ba idin qaadiye naf dalkaaga doonaysa furaash looma daadshee dabkan aan shidaayaa dawadiinna weeye digtoonaada weligiin dunidu waari mayse dhammaan gabayadiisu waxay xiriir toosa la lahaayeen ujeeddooyinkiisii halganka xoogaggii gumaysiga ee 36 goobood ay isaga hor yimaadeen ayaa marar badan waxay u soo jeediyeen intuu hubka iska dhigo inuu ka taliyo dhul baaxaddiisu weyn tahay hawd iyo nugaal oo idil cidafyada mudug ilaa hiiraan xeebaha badda ayl ilig iyo gabac ilaa harooyinka dig iyo doollo waxay kale u ballan qaadeen hadduu tooda maqlo inay siin doonaan mushaar ku filan sida madaxdii kale ee soomaalida ma hadduu diida ah waxay ugu hanjabeen in lagu soo qaadi doono olole dagaalo uu dhabarka kaga jabo dabadeedna wuxuu ahaa qorshahaas ninkii ku gacan sayray ee hungurigelintii iyo goodigii gumaysiga kaga jawaabay haddii laygu caashaqo caskar iyo maraakiib haddii ciidan fara badan laygu soo carcooriyo hadday soo cabaadaan cadcad iyo saraakiil haddaad soo cafuuftaan ciiddaa masaalkeed inkastaad curaabtaan ama aad carootaan cimrigay intaan jiro cadow hadduusan ii turin marna inaan cabiidsamo caqligeennayay gelin 22 gu oo weerar iyo raxaraad miirana kadib markii dayuuradaha daraawiish loola yimid ee lagu jabiyey dumarkoodii iyo carruurtoodii markii dooxooyinka nugaaleed lagu xasuuqay ee wixii ka haray ay dabayshadeen cali dhuux iyo maansayahano kaleba markay ka daba direen tixaha digashada ah waatuu sayidku kaga jawaabay gabayga la yaab kale ee dardaaran ku magacaaban gabaygii ku dhammaan jiray waa idin dagayaa kufriga aad u dabcaysaane dirhamkuu idin qubahayaa dib u go'aysaane marka xiga dabkuu idinka dhigi dumar sidiisiiye marka xigana daabaqadda yuu idin dareensiine marka xiga dalkuu idinku oran duunyo dhaabsada marka xiga dushuu idinka rari sida dameeraade marse haddaan dushii adari iyo iimay dacal dhaafay maxaad igaga digataan baruusiin la soo degiye sidaas uu sheegayay baana dhacday meel ay joogtaba wuxuu sayid maxamed soomaalida gar ugu leeyahay in sanad walba ay xusto maxaa yeelay haddaan laga dafirayn wuxuu gashaday abaal in la gudaa ay adag tahay mar waa aabbaha wadaniyadda casriga ee soomaaliyeed ninkii indhaha u furay ee ummadda uu ka dhashay dareensiiyey inay isku dan tahay inay gobonnimo geydo ninkii dubaaqayda ku riday mar kalena waa aabbaha maansada soomaalida hal abuurkii haddaan tiisu ku jirin ay maansada soomaalida wax weyni ka maqnaan lahaayeen ninkii gabayga dhalan rogay ee ku soo kordhiyey ujeeddooyin hor leh oo waagaa dhagaha dadka ku cusbaa sida tixaha xornimodoonka iyo gumaysi nacaybka xambaarsan cabdulaahi suldaan timacadde wuxuu allaha u naxariistay ka mid ahaa in dheergaradkii rumaysnaa haddaan soomaali baritaarayn haddaan soomaali gumaysigii uu la dirirayay ciidan u noqon haddaan soomaali qabyaalad kaga hor iman in sayid maxamed aan shisheeyuhu sina uga adkaadeen isagoo haddaba soomaalida taa ku canaananaya waa kii odhan jiray tirtirsiinyo soomaali waan looga taag heline sayidkii taleex degay markay turunturaynaysay haddaad maalintii taabacdaan tani ma joogteene anaa kaa tolroon waa waxau taraqi weydeene dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo